rag badan oonu isku ayninahay oo ka mid yahayna odayaha baarlamaanka in badan ku jiray oo odayaasha dalka ka mid a oo shalay midiyaa ka hadlayay halkii uu wax dhigay aniga ilama saxsanayn gabayaashii horaa odhan jiray gaaga markay mid tixraacayaan hebelow gabay wuu kaa qandooda wuu kaa qalocsan waxaa lee saaxiibkay doodaadii shalay wuu kaa qalocsan taadina ma ahayn waayo arnimaadina may ahayn waayo waxaad saadaalis dalka inay balaaya ka taagan tahay inuu dunaayo ilaa la garanayno si loo tariyo oo waayo doorashadii waxay taagan xisbiyada waxaa ku dhaawatay madaxweynaha waxaa ku dhaawatay tii gowtida qiil looma hayo waa loo yaabaa way dunaysaa aragtidaasi waa tirasha la-aanta waxaad adiguna og tahay oon adna ogahay oo shicibkuna og yahay oo caalamku og yahay dad aan nabad ahayn oo aan isku kalsoonayn oon hay-adii shaqayni doorasho ma galo ee uu isjir jira markaa doorasho aynu galo iyo dalkaa waalan saaxib isma qabtaan dalkuu degay doorashada u gelaya habkii loo gelaya habraaciyadeedii sharciyadeedii iyo hay-adihii doorashada qabanayna way badan yihiin waa kow intaasoo doorasho waynu u baahana siday kala horeeyaan waxay u kala horeeyaan sida sharcigu ogaayo sanad iyo in ka badan waxaynu ka hadlayna doorashada hala qabta doorashooyinka waa la qabanaya siday u kala leeyihiin doorashada iyo sida loo kala hormarinayana waxaynu u dooranay hay-ado axsaabta 10 sano mar hala furaa layidhi waxaynu u dooranay oo u xil saaray hay-adda diiwaangelinta axsaabta qaranka iyo ururada baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo kuwii maxaafidka ahaaba waxaynu ku heshiinay inaynu dhisno hay-addii diiwaangelinta ururada siyaasiga ah iyo xisbiyada qaranka oo inoo maamulaya doorashadii ururada iyo xisbiyada guddiga magacaabay baarlamaanka u codeeyay baarlamaankuna axsaabtooda ka koobaya xisbiga wada siyaasadiisa iyo siduu doonaya baarlamaanku maraya waxaanu dooranay hay-addii doorashooyinka oo u marqaadaysa garsoore iyagoo ah xisbiga tartami doona iyo madaxweyne iyo ku-xigeenka tartami doona oo ah hay-addii doorashooyinka qaranka iyadana xukuumad mucaarib muxaafid golayaasha cidita waynu ku heshiino iyadana waynu dhisna cidda kule ka hadli karta goor maa xisbi hawshaa la qabanayaa waa looda hay-ado soo sharcigu siiyey madaxweyne ma faragelin karo xukuumaddu ma faragelin karto xisbi mucaarid ma faragelin karo ku muxaafidi ma faragelin karo golayaashay soo dhaafeenna hawsha u igmadeen ma faragelin karaana waa lagu dhowraya waxaa loo sameeyey xeer adag madax banaanidooda inay keenaan marka waxaan leeyahay oo haddii aynu intaa ku heshiisahay oonu intaa dhisano waddada aynu marayno ragga walaaya aragga ah ee aada arrinta u yaqaana ee marka tallaabadii ay uradaasi qaadaanba ka qaylinaya ama institutionada dowladda howlaha ay qaabilsan yihiin dee way kuma qandooda waa khalad adaa waxaa ka soo dhisay hay-adahan heshiis baynu ka nahay inaad ka daba qaylisa maha weliba ragga la bidaayo waa aragnimada laga 7 sano baarlamaanka soo fadhiyeen inay dadka warqalada oo niyadjaba oo aan jirin u sheegaan dee waa khalad waan kaga arag duwanahay waxa weye dalku waa nabad abaarti way naga jabtay ilaa heer dadku waa isu niyadsan yahay doorashadii waynu gelaynaa siday hay-aduhu nagu soo kala hormariyaan baynu u gelaynaa waxaa timi doorashooyinku haddii ay qabsoomi waayaan 3 doorasho yaalla ka koowaad ee xisbiyada hadday 10 sano ka dhammaato xeerka baarlamaanku baaskareeyey ee ay ku shaqeeyaan muu sheegin haddii waktigooda la qaban waayo halka loo marayo sida la yeelayo muu sheegin marka qaranka waxaa ku waajiba in waktigeedii la qabto waayo tixraac kale male qeyl kale oo hadday qabsoomi waayaan maxaa la yeelaa ilaa hadda ma hayno in ku cusub loo sameeyey mooyaan markaa waxaan ku egnahay waktigooda la qabanaya madaxweynaha waktigiisa haddii la qaban waayo distoorkaa sheegaalka loo marayo sharci baa ka yaala sharcigu ciddii uu seebaa ka talinaysa 3
gurtiga marka waktigooda imika dhammaado xaggee loo marayaa wataada horaa xal loogu xalay 2006 bay dhacday madaxweyne markaa joogay gaarigaalo ahaa wuxuu u qoray tafsiir maxaa la yeelayaa maxkamadda qaranka maxkamadda sare ee dastuuriga isla markaa waxaan kusoo koobayaa dimuqraadiyaddu waxay noo tarto inaan ku culloobin iyo inaan isku dhicin hadday colaad noo keento waxaan leeyahay aynu bedelno inaan hore u marno aynaan ku culloobin aynu qabaa'il kaga baxno xisbiga wadagalno urura kala galno dadku si isku arreeyeen ay isu raacaan waa tallaabada uga baahnay adduunkan qaateen hore ugu maray waxaa leeyahay doorashooyinka inaan ku culloobin haddii maalinta kaamijado dee birta la iska asloo lagaa waa la duwaya dee dalkii maxaa loo arkaya somaliland doorasho dimuqraadiyadiisa laakiin waa laga baqayaa mar waa ay qoor ku jirtaba qayradeeda buuqa soo wax kale soo idaacadda dee qarankay hoos dhimaysaa karaamadii qarankay hoos dhimaysaa kalsoonidii dadka hore iyo hoos dhigaysaa